Alaabtan hadaa gacmaha iyo lugaha laba mar oo kaliya aa marsatid, gacmaha iyo lugaha dhalay kuu noqonaya, way kuu cadaanayaan. Daalka, qayrada, wasaqda, madowga, jacdadka waxaas oo dhan ayay ka dejinaysaa. Gacmaha iyo lugaha alaabta waxay ka dhigaysaa jileec, qurux, dhalaal. Maasha Allah, lagama sheekeyn karo hadde. Markii igala bogto videoga soo socdo waxyaabo aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u samaysanayno. Maalmaha ciida ka dhiman hadda alaabtan lugaha iyo gacmaha ka gaarsii si ay hadda lugahaaga iyo gacmahaaga ayagoo kuu cad oo kuu dhalaalay oo kuu qurux badan aad u ciidid. Alaabtan hadda isla ogow igana la bogta videoga soo socdo waxyaabo aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u samaysanayno. Maxaa ka fiican hadde alaab natural ah jirkaaga ku dayactiro oo ku quruxso oo ku nadiifso oo ku cadeyso. Waa maasha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta ku xiran Najax qurxinta Ramadaan Kariim, walaalahayga meel walba aad joogtiin dhammaantiin kusoo dhawaada channelkeena Najax qurxinta oo barateen isqurxinta dabiiciga. Waa walaashina deeniisida cashir kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada. Sida title-ka video ku soo aragteen qaybta ugu horeysa video ku soo daawateen wixii hadala qaybta ugu horeysa videoga ayaan ku soo koobay walaalahayga. Marka hadalka iyo warkeena kuguma badinaya hadde alaabtan dheelitiranka oo lugaha iyo gacmaha lagu dayactiraayo ayaan maanta ka soo tuuranaynaa insha Allah. Videoga soo socdo igala bogta walaalahayga waxyaabo aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u samaysanayno. Waana ku mahadsantihiin mar walbo sida quruxda badan ila socotiin walaalahayga. Muuqaalka haddii aad daawatiin hadde like-ta hanaga ilaawinina insha Allah. Bismillah. Alaabtii fudeed oo gacmaha iyo lugaha cadeynaysa ayaan ka soo tuuranaynaa walaalahayga. Marka hore waxaan soo qaatay weel alaabta aan iskula dardarsano. Sidoo kale marka koowaad waxaad u baahan tahay coffee ayaa u baahan tahay. Waxa bacda ku jira waa coffee waaye, nice coffee ama coffee sidii aad u taqaanid. Coffee-gi ayaan waxaan ku shubayaa weelka yaraa walaalahayga. Coffee-ga midka bacda, midka caaga, midka dhalada, mid allaala midkii aad heli kartid ayaa isticmaalaysaa. Xabadii labaad ayaa haatan ku shubaya. Xagga jirka qurxinta laguma gaaro, waa number 1 waaye walaalahayga. Jirka aad ayuu u dhaqaa oo u nadiifiyaa, jirkana wuu cadeeyaa, quruxna wuu ka dhigaa. Sidoo kale waxaan kaloo ku darayaa hal qaando sonkor ayaan ku daray walaalahayga. Sidoo kale waxaan kaloo ku darayaa hal qaando saliid ayaan ku darayaa. Saliidan waxa waaye waa saliid qumbo waaye walaalahayga. Saliid qumbo meeshaan ka isticmaalaya saliid saytuun, saliid cadde in saliid aad heli kartid ayaad ka isticmaalaysaa. Sidoo kale waxaan kaloo ku darayaa hal jab oo liin dhanaan ayaan ku miirayaa walaalahayga. Alaabtii intii aan isku soo dardarsanay ayaan isku qasayaa oo si fiican isku dhexgelinaya. Alaabtan wax biyana hadda walaalahayga kuma daray. Inta isku dardarsanay oo kaliya ayaan si fiican isku qasayaa oo si fiican hadda isku dhexgelinaya. Innaba caadi maahan alaabtan. Maasha Allah waaye. Jirkana hadda waxay ka dhigaysaa jileec, qurux, nadiif, cadaan. Maasha Allah, lagama warami karo hadde. Alaabtii markii aan isku soo qasay oo si fiican aan isku soo dhexgeliyay walaalahayga, sidaas ayay inoogu soo baxday. Maasha Allah, alaabteeni fududeed hadde sidaas ayay diyaar inoogu tahay. Haatan oo kaliya wuxuu baahanto in jag la isku siiyo oo la isticmaalo. Marka sidee u isticmaalaysaa? Marka hore waxaad samaynaysaa lugaha iyo gacmaha ayaad iska soo dhaqaysaa oo iska soo nadiifinaysaa. Ka bacdi ayaad alaabtan lugaha iyo gacmaha aad marsanaysaa. Aniga haatan gacmaha ayaa marsanaya walaalahayga, waana tusinayaa. Waxaan soo qaatay hal jab oo liin dhanaanta qolofkeeda ah ayaan soo qaatay walaalahayga. Qolofka liin dhanaanta oo kaliya alaabtii ayaan hadda aan dhexgeliyay. Ka bacdina hadda u jeedin sida u marsanaya. Sidaas oo kale ayaad u marsanaysaa. Alaabtan gacmaha iyo lugaha sidaas ayaa ugu rugaysaa oo aad u marinaysaa. Markii aad lugaha iyo gacmaha alaabtan aad si fiican u marsatid waxaad ku joogaysaa 10 daqiiqo. Markii aad ku joogtid ka bacdi waad iska mayraysaa alaabtan oo waad ka dhaqaysaa lugaha iyo gacmaha. Lagama sheekeyn karo hadda lugaha iyo gacmaha marka alaabtan ka dhaqdo quruxdooda aad ka yaabi doontid. Alaabtan marka walaalahayga sidaas ayaa loo isticmaalayaa. Isbuuciina waxaad ka marsanaysaa alaabtan 2 maalin ayaa week kasta aad ka marsanaysaa. 2 maalin hadaa rabtid 2 maalin isku xigtaa ka dhiganay, hadaa rabtidna 2 maalin dhaaf. Hal maanta oo kala marsanaysaa. Bariyo kale waa iska deeni, bari dambaa marsanaysaa.
maalin dhaaf oo kale waad ka dhigan kartaa isbuuci markaa 2 maalin aad ka marsanaysid. marka walaalahayga ila soo tijaabiye oo igala faa'iideysta maalmaha ciida ka dhiman hada alaabtan lugaha iyo gacmaha la sii gaar si ay u ciidid adigoo hada lugahaaga iyo gacmahaaga kuu cad yihiin kuu iftiimayaan kuu qurux badan. maxaa ka fiican adigoo gurigaaga joogtid oo hada meelna aadin oo saaluuna tagin qarashna isgelin lugahaaga iyo gacmahaaga gurigaaga ku dhaqo oo ku cadeyso. waa maasha Allah meel laga helo malahan waliba adigoo isticmaalayo alaab natural ah. marka walaalahayga igala faa'iideysta oo ila soo tijaabiya hada waxaan kaga tagayaa sidaas nabadgelyo. waa inoo kulanti dambe xiiso leh yaaniga weyniisido video kale cusub walaalahayga. videogana sii share gareeya si ay walaalo badan uga faa'iideystaan oo jecel mar walba inay jirkooda waxyaabo dabiici ah ku dhaqaan oo ku cadeeyaan ama ku qurxiyaan. walaalahaas oo kale ayaa ka faa'iideysanaya. marka sii share gareey videoga. channelka hadii aad ku cusubtaana soo dhawo minankaaga waaye. channelka inoo subscribe garee inoo like garee. hadii aad hore noola joogtana waad ku mahadsantahay mar walba sida quruxda badan aa inoola joogtid. videoga hadii aad daawatidna like ta hanaga ilaawin. like ta waa dhiirigelinteena koowaad.